waa mahadsantahay mtrade anigana haddaan ku socdo waxyaabaha oo barojectyada lagu xishto waxawaaye badnaan waxaa aad u muhiim u ah dhanka fundamentalska waa projectiga waxqabadkiisii dadka ka dambeeyo waxyaabaha oo ugu muhiimsan waxaa ka mid ah projectiga muxuu xalinayaa projectyaasha waxawaaye sectorooyin badan ayay kala leeyihiin sida AI-ga sida layer 1-ada ama blockchain-ka maxaa laga yaabaa hadda caqabadooyin badan ay jiraan camal dhanka scalability-ga projectyaa soo baxay wuxuu ku leeyahay anaga waxaan qabanaynaa 1 million oo TPS ah per second taasina waxaa wax aad u fara badan waaye blockchain waxaa qaarkood intooda badan million iyo meelahaasi dhamooba gaaraanbo boqolaal ama kumanaan waaye real time-ka projectiga muxuu u joogaa marka sababta uu joogo muxuu yahay competitor miyaa hadda subi wuxuu la competite gareynayaa solana iyo ethereum iyo kuwaaseti projectiga muxuu qabtaa gaming miyaa payment miyaa defi miyaa storage miyaa waa in oo wax xalad oo jirto uu xalinayo kuwa qaarkood waxa waaye daday la tartamayaan kuwa qaarkoodna fikrad cusub ayay la imaanayaan marka kow projectiga wuxuu qabanayo ama wuxuu xalinayo hadduusan wax xalinaynin dee waa sida meme-kon uu yahay meme-kon waxaa ognahay in wax mustaqbal ay lahayn keliya tahay wax community-ga oo dhaqaajinayo sidoo kalena visionka ama roadmapka ay leeyihiin waxaa projectyada waxay leeyihiin white paper warqad oo ku qoran xogta dhan wax walba projectiga wuxuu sameynayo aalad ay xalinayaan tokenomiskiisii iyo waxyaabo badan ayaa meesha ku jiro iyo sidoo kalena roadmapka waxa uu qorshaysan mustaqbalka quarter ayuu dhaca banaan waxay ku leeyihiin quarterka koowaad ee 2025 projectyaa development gareynaynaa SDK ka dhigaynaa saana sameynaynaa waxyaabo badan oo markaas saddexdaas bil ay ku qabanayaan ay roadmapka ay ku sheegayaan marka roadmap walbo waxaa lagu sheega marka muddadaas ay qabsadeen iyo waxyaabaha ay ku qabanayaan waa projecti inuu already uu yahay wuxuu sameynayo mustaqbalka sidoo kalena teamka rule weyn ayay ka qaadanayaan projecti Solana haddaa fiirsid teamkiisa waxaa muhurdaan 90 xabay karkarayaan waa team oo heegan ah oo experience fiican leh suuqaanida muddo dheer ku jiray oo projecti waxa waaye hal iyo haween oo karkarayo teamka waxa waaye waa qodob asigna aad muhiim ah waa in dad oo experience ay leeyihiin sidoo kalena oo meelal badan oo kasoo shaqeeyay background oo tech ay leeyihiin haddaa fiirisid co-foundersyada oo crypto dhan waxaa arkaysaa badnaa waxaa computer science iyo waxay soo bartaan cyber security iyo waxay soo bartaan cryptography iyo waxyaabo oo adiga oo technologyda ah wax walba waxay noqon kartaa qodobada haddaan soo xusnay waxa oo tech ah background qofka inuu tech uu leeyahay sidoo kalena experience fiican uu leeyahay shirkadooyin waaweyn uu shaqeeyay waxaa arkaysaa inuu kasoo shaqeey jiray Google ama Amazon ama Coinbase ama Binance waa qof oo experience u leeyahay oo shirkadooyin oo waaweyn oo hore uu la soo shaqeeyay ama Apple hadday tahay kuwa designka camal ama kuwa mobilada camal hadda CEO-ga oo Solana backgroundkiisa waxa waaye mobilada iyo xasid waa tech waaye sidoo kalena midka kale oo Indiaanka marka waa qofka in oo background oo fiican uu leeyahay oo waxaanita uu sheeganayo in uu kasoo qalin jibiyey ama jaamacad uu soo qaatay sidoo kalena experience uu leeyahay iyo advisorska dadka oo projectigaasitay advisor u ah sidoo kalena inuu leeyahay use case wax la isticmaalayo waa su'aalaan blockchain markii lagu dhahayo waa inuu isticmaal uu leeyahay sida gas fee-ga camal marka lacag transaction sameynaysid waxaa laga rabaa gas fee inaad dhiibtid gas fee waxaa ku dhigaysaa marka coinka oo blockchain-kaasitay marka use case waaye transactionka markaa sameynaysid waxaa laga rabaa fee-ga inaad ku dhiibtid coinkood marka isticmaal ayuu leeyahay sida staking camal haddaa staking garaysid ama marna ku helaysaa sidoo kalena sida the virtual camal ecosystem oo gaar ah ayuu samaystay oo lagu soo launch gareynayo coinka coinan oo AI agents ah iyo meme coin oo isku dhex jiro marka waxay sameynayaan coinkood ayaa staking sameynaysaa taaseeto ah supply-ga circulation wix banaanka yaalo ayaa yaraanayo intiis badan waxaa waaye dadka waxay rabaan inay ka faa'iidaystaan oo coinanka markaasi soo baxayo kisooyinka badan sameynayo coinanka marka way wada xirayaan taaseeto waxay sabaysaa marka in demand badan loo yeelo coinka sidoo kalena markaad coin aad iibsanaysa camal coin oo waxa soo baxay oo AI agents ah waxaa lagu leeyahay marka waxaa ku iibsanaysaa coinka virtual marka waxaa u baahanaysaa virtual waxay noqonaysaa marka inaad suuq aad tagtid oo coinka aad soo gadatid oo ku iibsatid marka use case ayuu ka mid yahay waxaa lagu isticmaalaa ecosystemtiga dhexdiisa sidoo kalena
tokenomics waxa waaye waa coinka qaab dhaqaale ahaan siduu u samaysan yahay si loo kala leeyahay teamka meeqay leeyihiin dadka investorska meeqay leeyihiin treasuryga khasaanada meeqa waaye carrot communityga kuwa qarko staking waaye sidoo kalena qaabka oo loo kala qeybiyo distributionka iyo sidoo kalena waxa waaye allocationka si loo kala leeyahay iyo sidoo kalena qaabka oo loo soo fasaxayo badnaha schedule la geliyaa kuwananka projectyaasha leh hal mar suuqa laguma wada soo deyo kuwa suuqa lagu soo deyo badnaha waxa waaye meme coin waaye meme coin dhammaantood hadaa fiirisid waxaa arkaysaa kulligood banaanka ayay wada yaalaan waxa oo inflation ah maaha waa wax hal mar oo suuq lagu wada soo deynayo wixii ka dhaca ka dhaco kadib waxaa coinka u dhaqaaqaa ma yahay aggressive oo ah muddo kooban miro badan oo lasoo fasaxayo coinka markuu cusub yahay lano circulation wax badan kuma jiro laakiin haddii lakii waxa uu iska dhaqaaqaa haddii oo circulationku uu bato wix suuq yaalay waxa sababaysa marka in coinka oo prices oo xooga hoos u dhaco haddii coinka mirihiisa tusaalahaan 1 billion waaye suuqa kaliya waxaa yaalo 5% taas waxay ka dhigan tahay marka in boqolkiiba 95 coinka oo wili ay xiran yihiin oo lasoo fasaxayo oo banaanka la keenayo hadday 5% la yaalay price-ku dhaqaaqay hadda marka wixiyaa sii badanaya waxay gaaraan 10 20 30 waxay noqonaysaa marka price-ka hoos u dhacay wax walba waxa waaye marka supply iyo demand waaye baahida dadka ay qabaan iyo wixii suuqa yaalo marka coinka waa tokenomics fiican inuu leeyahay xillada lasoo fasaxayo inaysan ahayn muddo kooban bil walba camal in miro badan lasoo fasaxayo taas waxay sababi kartaa marka pressure badan ay sababaysaa coinka qiimihiisa marka hoos ay u dhacaa waa iska fiirinaysaa marka iyo sida loo kala haysto haddii jaboonayaal oo percentage badan ay haystaan waxa waaye ayaga ayaa ku ciyaaraya dhow ay daadan karaan taasina waxay menace badan ayaa kala kulmi kartaa waa in distributionka ay exchange iyo kuwaasiyta intiisa badan ay haystaan inta kale waxa la jiro hal saas camal aad percentage oo 1% iyo wax ka badan aysan gaaraynin لأن haddii oo uu controlo project weyn hal qofood ama qof jeeweyn ah percentage badan waxay sababi kartaa marka dhow in uu ku ciyaaro dhaqdhaqaaqa oo coinkaasiytii oo sell gareeyo oo dhow coinka uu daato sidoo kale community inay leeyihiin community waxyaaba muhiim ah waaye ayaga marketing ku sameynayo haddaa community fiican aad leedahay sida XRP army camal coinka waxaa arkaysaa inuu top 10 uu ku jiro oo sidoo kale market cap aad u badan yahay laakiin still community ayaa misan wax bushkareynayo community waaye hal haween waxa ku leeyihiin $10 uu gaaraa $100 uu gaaraa ay aaminsan yihiin projectiga marka community waxa waaye role weyn ay ka qaataan projectiga sidoo kalena exchange-yada project hadduu weyn yahay badnaa waxa waaye exchange-yaasha waaweyn ayaa lasoo geliyaa hadday tahay Binance ama Coinbase ama haddii kale Bybit waxa top tier waaye waa exchange-yada oo ugu waaweyn markii loo fiiriyo suuqa ayday Kraken kuwaasi waxa waaye waa inuu ku jiro sababtan waxa waaye liquidity badan ayuu helaa lacag badanaa soo gelayso haddii laakiin coinka uu ku jiro tusaale ahaan exchange aan la aqoonin ama haddii kale get.io keliya uu ku jiro coinka marka dadka badan ma arkooyin laakiin haddii coinka oo lasoo geliyo Binance lasoo geliyo Bybit Maxi meelo badan uu ku jiro kadib waxa waaye way fududaanaya in lacag ay soo gasho xataa bull marketka markii dadka suuqa ay ku cusub yihiin way soo galayaan tax iyo meel kale iyo exchange aan la aqoonin ama qof haddaa dhahda KYC mar exchange soo degso uu dhibsanaa ama haddii kale waxa uu wahsanaa inuu exchange uu soo degso KYC wax uu maro oo coinkaasid uu gato maya wuxuu rabaa exchange-iga markaasid u degsan Binance iyo Coinbase inuu furi karo uu iibsan karo isla marka buy uu dhihi karo haddaa meel kale u degto waxa waaye bannaan dadka ma iibsadaan marka taasna waxay sababaysaa in liquidity uu helo ama lacag fiican ay soo gasho sidoo kalena partnership inuu leeyahay iyo integration tusaalaan chainlink camal waxaa arkaysaa boqolaal oo project ah ayuu integration uu la sameeyey sidoo kalena waxa partnership uu leeyahay taas waxay tusinaysaa in dad badan ay kaashanayaan projectiga oo isticmaal badan uu leeyahay partnershipna waxay ku tusinaysaa shirkadooyinka waaweyn tusaale ahaan haddii oo coin oo partnership uu leeyahay Binance iyo Chainlink iyo Circle iyo exchange-yaasha waaweyn iyo sidoo kale project-yaasha oo waxqabadka leh ama teknolojiyada oo casriga ah soo gudbinayo Oracle-ka hadday tahay kuwaasina waxa waaye waa waxyaabo oo la fiirinayo gaming xataa project-yaasha waxay sameeyaan partnership ay la sameeyaan sidoo kalena TVL-ka hadduu coin u yahay chain ama blockchain oo la isticmaalayo waxaa la fiiriyaa bannaan TVL-ka inta lacag ay ku xiran tahay
the more coinka project lacag badan ay ku xiran tahay the more ay fiican tahay hadda coinka ka daan camal hadda ay fiirisid TVL-ka lacag badan kuma jirto waxaa sanad walba waxaa ugu sii daadanaya keliya wuxuu ka faa'iidaystay bull market kor lasoo dhaafayay 2021 kadib cirka peak ay dhacay lacag badan ku xirneed kadib waxaa si loo soo daadi waayey mar walba waxaa hoos loo sii daadanayay haddana 1 milyan iyo 400 kun oo dollar ayaa ku jirto laakiin dhanka kale haddaa fiirsid isla chain waay ka deen xataa waxaa layer one blockchain ah sida subi camal avalanche haddaa fiirsid waxaa arkaysaa TVL-kood mar walba in dhaqaaq u sameynayo ama qaarkood waxaa dhacdo in oo hoos u daato lacag ay ka baxdo laakiin uu soo laabanaa hadda haddaa fiirino avalanche camal uu soo laabanayaa subi sidoo kalena new all time high uu samaysanayaa marka waxay ka dhigan tahay in oo blockchain-kaasete oo lacag badan ay ku xiran tahay stakena lagu sameynaa waxaa loo adeegsadaa dhanka DeFi lending iyo borrowing-ka loo adeegsadaa waxaa waaye lacag badan ayaa ku jirta marka protocolooyin ay leeyihiin haddii taa lending-ka borrowing-ka waxyaabahaasete oo DeFi-ga ah marka taasna waxyaabo oo la fiirinayo waaye sidoo kalena security-ga iyo sidoo kalena regulation-ka coinka waxaa waaye waxaa lagu sameeyaa badnaan auditing ayaa lagu sameeyaa oo smart contractiisa waa la xaqiijiyaa shirkadooyin badan ayaa jirto sida Certec camal iyo Hacken shirkad la yiraahdo ayagana waxay sameeyaan marka dadka coinkii wixii la arkoyin laakiin behind the scene waxaa wax la kood gareynaya waaye waa wax oo la qoraayo luqadooyin waxaa jirta oo programming ah sida Rust camal sida Solidity sida luqada Move camal oo adeegsato Sui marka koodkaaseti waxaa waaye wax oo la xaqiijin karo oo la fiirin karo haddii uu ku jiro wax oo malicious ah ama wax oo dhibaato keeni karo ama oo wax oo scam ah ama rug pull uu yahay haddii fee naftirkiisi waa la xakameyn karaa oo waxaa la sameyn karaa markaad iibsanaysid wax fee ama laga qaadayo laakiin hadhow markaad iska iibinaysid waxaa lagu dhahaa 100% so hadhow waxaa waaye lacagta dhan meesha kaaga baxday ama haddii kale 50% ama fee haddii lagugu dalco khasaara ayaa ku jirtaa wixii kusoo gadatay wax ka badanaa fee-ga kaaga baxayo sidoo kalena in oo blacklist uu leeyahay kuwanka qaarkood meme-kooda ugu badan blacklist uu leeyahay wadi waxaa gadan kartaa laakiin hadhow wixii iska iibin kartid oo dhagaxyo ayaa waaladkaaga ku haysataa marka all in all waxyaa ugu muhiimsan tokenomics-ka teamka sidoo kalena community inuu leeyahay iyo waxqabad use case iyo cilad ay jirto in uu xalinayo waa ku sheegsad